الله الرحمن الرحيم sodcaalkan aan u nimi imaaraadka magaalada Dubai ayadaan idinka warramo sababahiisa waxaan u nimi inaanu la shiro sharikadaha shidaal baarista ka wada dalkeena Soomaaliland oo 4 sharikadood ah oo markii ugu horeysay sharaa'igaas aan u qabanay shir ay ka isu dhan yihiin oo ay guddigood wada joogaan 4 sharikadood haddii aan taabto waa sharikadda DN oo la yidhaaho sharikadda Ansan sharikadda Genel iyo sharikadda Ragas 4 sharikadood 3 sharikadood ka mid ah saldhigoodu waa dalkan Imaaraadka halkan marka waxaan u nimi in wasaaradahan aanu la shiro maadaama hawlgalladii shidaalku aan moogtay sanadkan aynu ku jiro insha Allah aanu rajaynayno inay wax ka bilaabmaan waxyaabaha aan markaa shirkan isugu yeernay sababaheeda waxa ka mid ah in aanu doonayno in laga wada faaloodo oo isla gorfeeyo si caama 4 sharikadoodba iyagoo wada jooga waxyaabaha really moogtay yani ay ka u dhaxa ee ay wadaagaan ay ka mid tahay yani nabadgelyada iyo security-ga ay ka mid tahay muxuu ahaayay wacyigelinta iyo xiriirka bulshada ay ka mid tahay haddii baydmaayo muxuu ahaayay yani halka hawlahoodu mid walba marayo waqtiga saasmka mid walba bilaamayo sidii wixii isla qorsheeyo oo si wada jira waxyaabaha really ay ka madaysan yihiin ay u wada qabsadaan si aan magaranaysa moogtay yani la isula socdo annaguna marka aan wixii magaranaysa talooyina iyo tusaalayna aanu doonayno haddii baydmaayo inaanu magaranaysa halka ugu sheegno marka runtii shirkan maanta aanu sharikadan sharaa'iga ugu yeernay halkan Imaaraadka sodcaalkaygu ay intaas u daaranaa marka insha Allah waxaan rajaynayaa shirkaas inuu shir muhiim noqonayo oo ay laga arrinsan doono insha Allah waxyaabaha moogtay muhiimka ah ku gadaaman hawlgallada shidaalka aynu filano insha Allah in sanadkan maalinkan maanta oo ka bilaabmo dalka Soomaaliland saacadda wasiir waxaan ugu maqaalaa in waddanka ay timi shirkad Chinese oo macdan ka baaraysa arrinkaas maxaa ka qabsoomay maxaase ka damacsantihiin bal warbixinaga si gaaban su-aashaad weydiisay haddii aan ka jawaabo ku saabsan sharikadan Chinese-ka bishii dhaweyd aanu dhammaadkeedii dhowaan aanu la saxeexanay wax la yidhaaho MOU heshiis aanu la gallo oo rasmi ma jirin wuxuu ahaa hordhac isafgarad wax la yidhaaho ma garanaysaa mabda'iya isafgarad mabda'iya ama MOU memorandum of understanding waxyaabaha marka memorandumka aanu isla qaadanay waxa weeye sharikaddu inay inoo eegto hordhac sahan hordhaca dalkeena ka samayso siday ma garanaysaa ay qiyaasto waxyaabaha khayraadka dalkeena ee macaadinta ah ku jirta sahankaasi waa sahan aan inaga wax yani kharasho inaga gelaya aanu jirin macluumaadka ay helaana ma garanaysaa ay wasaaradda u soo gudbinayaan macluumaadkaas baadhistaas iyo sahaminta markay dhameeyaan ayuunbay noqonaysaa markaa wixii ay mogtay yani heshiisyo doonayeen nala galaan ee asmi macaadin soo saaris hadday noqoto ay daneeyaan inaanu ma garanaysaa markaa dee aanu la mogtay mushaawirano oo aanu negotiation la samayno si aanu heshiis rasmiya oo muxuu ahaayey golaha wasiirada laga ansixiyo aanu ula gallo waxa cusub oo aan jeclay halkan idinka sheego sharikaddu inay muxuu ahaayey martiqaad rasmiya noo soo fidisay inaanu wasaarad ahaan ugu tagno dalkooda China oo aan aniga iyo haddii baydmaayo wasiirka xogeenka wasaaradda iyo agaasimaha macaadinta saddexdaydaas aanu isu raacino oo insha Allah shirarkan Imaaraadka aan markaan maanta aan u nimi ee ku saabsan sharaa'iga shidaalka markay dhamaadaan waxaanu u bixitimaynaa haddii Ilaahay ka dhigayo dalka China oo markii ugu horeysay wasaaradahan hawl aan u tagno qaran oo ay garanaysaa yani ay ku salaysan muxuu ahaa martiqaadka rasmiga ah ee sharikadu noo fidisay oo doonayso inayna tusto hawlaha ay ka wado dalka China ee macaadin baarista ama macaadin soo saarka iyo hawlaha kale ee ku saabsan koronto dhalinta ay labada arrimoodba ay sharikadu aad iyo aad u danaynayso inay dalka Soomaaliland ay ka fuliso haddii maalinka maanta ay suurto gasho
marka sidaas ayay daaran tahay socdaalka aan ku tegi doonaa China insha Allah sida ugu dhaqsaha badan leh waxaan filayaa in ay noqonayso socdaalkaasi in weegan gudihiisa marka hawlo halka nooga dhamaadaan Imaaraadka